qoyskan oo ah qoys tan yar oo ku nool degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag oo lagu magacaabo ilma Cabdi Mirood Cabdi Nuur ayaa eheladooda iyo qaraabadoodu waxay dadka muxsiniinta ee ku kala sugan daafaha caalamka iyo maalmaha ugu dambeeya bisha barakeysan ee Ramadaan iyo maalmaha ciid ee foodayna ku soo haya ayay dadka muxsiniinta ee ku kala sugan daafaha caalamka waxay weydiiyeen inay soo taakulayaan qoyskani waa qoys ka kooban 4 qof oo markaasi saddex ay waalantahay caruura iyo hooyadooda ku dhex jirta waana kuwan eheladooda iyo qaraabadooda oo markaasi dadka muxsiniinta waxay weydiinayaan in aad aragtaana ay ku xiran tahay agoon ay yihiin saddexdii reer badhalay ay yihiin ay eeganayeen labadoodii boqolle iyo konton leedeedii hooyadoodna ay taa idin muuqato tahay wax awooda ilaahay baa awood leh aanay u haynin aabahoodu horay uga ilaahay ka horreysiiyey wax kaloo islaamku ugu tabarucaba ay quudka iyo diin hooyga ay ku jiraan waxaanu muslimiinta u sheegaynaa dal iyo dabadba daawanaysa inay dadkaasi degdeg nooga soo gaaraan inay caawimo wala soo gaaraan inay fadliga ilaahay wax u soo baxsadaan inay ilaahay hortiisa wax u soo taraan ninna ma jeclo awlaadiisii boqolayaashiisii oo silsiladaysan nin waliba ninkii muslim uu ka diirayaa waana ka tiiraayoonaya waana ka ooyaya dhibaatada halka taalayaan labada boqolle iyo konton leeyahay iyo hooyadooda kuba dhow yar inay sidooda noqoto ila qofkii qof xanuunsanaya ayaa waaba ku darsamaaye iyo saddexdu iyagu waa kala dambeeyeen waxa weeyaan waxaan idinka codsanaynaa muslimiinta noo maqlaysa meel walba soo eegtaan oo noo soo gurmataan wixii aad soo diraysaan dahabshiil ceer Sanaag baad ugu soo diraysaan iyo lambarada shaashada idinku qoran baad u soo diraysaan dan yar tahay wixii awooda oo loo qabanayay waa inta ay hoosta kaga jiraan oo harsadaan wixii waxaanu leenahay kii waalidiintiisa wax u bixinaya iyo kiisa ka bixinaya iyo kii sadaqad bixinaya iyo kii ilaahay dartii wax u bixinaya iyo kii walqal bixinaya iyo kii fidra bixinaya kii ilaahay ugu soo dhibo waxaanu idin leenahay dadka amaatada oo caynkaas oo xanuunku ku raagay oo dhaqtaraan la geyn aabahoodna isagoo wadwada ilaahay ka oofsaday oo ay agoon yihiin oo isagoo saa u hogaaminaya oo hoggaanka ugu wada oo xarkaha ugu wada aabahoodna ilaahay ka horreysiiyey oo uu ka oofsaday iyagoo aan lahayn adhi iyo geel iyo xoog iyo cid wax u qabata aan hooyadood ahayn hooyadoodna iminka ay ku duldhac ku dhowdahay oo saddexda qof oo intaa laaleegayahay oo mid cararayo oo mid dibay ku ron yahay jiifo oo si kastaba ahaade oo yacnaha wax cid ah oo aan iyada mahay aanay jirin waxaanu leenahay ninkii wax sadaqadaysanayo islaamahow dadkaa noogu soo tabaruca hooyada caruurtaasi dhashay ayaa 4 kalmood ii sheegtay iyadoo ka qeyreysan dhibaatada guriga ay haysata iyo waalida markaasi caruurteeda kala soo daristay على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم مسلمين طوحان كسلامنا مقع إله جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانو كسلامنا وحنو نهيدد باهنا وحنو نهيدد حنصرية ugu dambeyntii mid ka mid ah odayaasha ku nool magaalada Ceelbe iyo iimaanka magaalada Ceelbe Sheekh Yuusuf Xuseen Mataan ayaa ka hadlay caruurtaasi dhibaatada haysata iyo wax la'aanta markaasi la soo daristay way adalkiisu buu naga dhan yahay waana la iiga dameynayaa dadka masaakiinta oo macduuriinta oo iyaga iyo hooyadoodba ay isbitaal yihiin iyana habadka islaawiyadoodna aanay tabar hayn baanu idin soo sheegnay sidaa sheekhu idin yiri wixii de muslimiina oo wax kala qabanayo idin soo ogeysiinay sidaas aanu anagu idin soo sheegnay hada wa salaam ummadda muxsiniinta ana oo dadka maanta wax ku soo tafadulana iyagana waa u ducaynaynaa ilaahay inuu maalinta qiyaamada miisaan xasanaadkooda ugu kordhiyo ifka intay joogaana alla u barakeeyo وحديثنا أخرينا يقرأ كنا أخرينا يعني وحينا تصالينا يعني وحلا بحصده يعني فضل قولي هاي يوحى النبي وتقول لي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة وحي الله بحصده وصدقة لا تضفئه وحيس حساب الضبر الرب إلهي عرديس سيدا قفك وحلا سيا قاجدوا كل كذي
wixii la siiyey uu u seexiyo ayay maaragtay wixii Ilaahay caradiisa u seexisaa wixii la siiyey qofkana dee dhibaatadii iyo gaajadii bay ka seexisaa waxay kaloo nabigu leeyahay sadaqadu waxay daafacdaa maytata suu in qofku si xun u dhinto in bahala cunaan in gacan ashraar la dilo in la googooyo inuu si maartay kulli wal dhimanayaa si fool xun u dhinto way ka daafacdaa maartay sadaqadu yani xadiiska kale tana qof kasta oo muslima baa nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam haddii aad tahay qof muxsina u soo gargaar dadka walaalahaaga ee dhibaataysan kuna dhibaataysan degmadana Ceelbe gobolka Sanaag waxaan ugu soo hagaajin kartaa lambarada imika shaashada kaaga muuqda waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur degmada Ceelbe gobolka Sanaag